jacaylka marxalad baa jirta la dareemo markaad dareento xubnaheed ka dareenta dibinta hoose qaraxdan aniga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta qaaliga xakan nagala socotaan waa Ridwaan Arka Media qofka in la hadlayana waa laftarkiisii halkan waxa iga xiga oo official iyo media magacyadooda waa Said iyo Mumno kulay saad ku soo aragteen qoraalka meesha ku qoran waxa weeyaan waa maxay jacaylku waa kelmad siyaabo badan isku soo urursanayso waan soo koobay dadka bilaadanku ma sino qof siibuu arkaa jacaylka amba siibuu dhiga maanta aanu qofaan jecel hadaan waayo iyo qofkan Muna hadii weydo iyo walaalkiis Said hadii waayo kala siiban kala turjumanna idinku la daawada garabkayga midig baan ku bilaabayaa Muna iga taagan Muna ku soo dhaw wax la horta hadadan ka dhaxkalay الرجال على قوانين mar walba dumarka ragga ka horeeya way سبدل دوي ku soo dhaw horta jananka Muna u dhibi doona mikrofoonka Muna ku soo dhaw aad iyo aad baa mahadsantahay Ridwaan Naasir Ibrahim Jaamac Media adigiyo asxaabtaada baad bartay wada salaamay horta jacayl marka la iraahdo jacaylku uu siyaabo badan yahay wajiye badan yahay uu noocyo badan yahay dadka askarayn jacaylku waa casaan xagad ku aragtay jacayl waa casaan jacaylku wax midaba ma aha wax la taaban karna ma aha wax shakhsiyaad qof dul saarana ma aha laakiin waa dareen qofka kale waanan aaminsanahay jacaylka Muna aaminsantay hadaba aaminaad waxa kaaga horeeyo inaad waxaad aaminsantaad ka waranto de waynu soo laaban doonaa walaalkii Said kullu jananka waa janankaaga hasmartiyeen ku soo dhaw jacaylku yahay يعني inaan ka sheekeeyahay horta Simon sheegtay jacaylku waaranaari saad jacaylka sheegtay wax midaba ma inaga ariya isaguna ar horta jacaylka saad sheegtay wax la taaban kara maaha wax la arki kara maaha laakiin wax la dareemi kara jacaylku waa dareen su'aal ku weydiiyay adoo jalan kale waxa ugu dambaysanaysa may su'aashayga jawaab waayo waa daafurka jacaylka inaad janankayga ka baxdo inaad bartaas ka fadhido تمام فري jacaylka marka waxa weey horta dhiso horta waxa weey ninkii igu horeeyay intaan dad soo arkay inta ku koonaya jalanka ma ka bixi soo tuu inta laga tiray dhow ku daraya jalanka ma ka bixi ninka ma dhimay horta hadda martoo lagu iyo shaahina noo shubtay aad su'aasha ku dinay xataay jacaylka marka dareento xubnaha kugu badan ka xunaa ku daacada ku jabilaa ku dhashay sax horta anu su'aasheeda dib baan dhiganayaa meeshii waxa taalo hortaag waxa jirta qofka markaad doonaysid inaad ka qabsataan barnaamij doonaysid inaad ka qabsato su'aalaha qaar bad isla soo wadaagsan waqti aad ka oranaysaa su'aalahaas meesha taalo ku weydiinaya de marka waa yar falxumo su'aalaad u soo sheegtay ku tiri su'aalahaas meesha la ku weydiinayno quraadadii ka jawaab almu ku soo jawaabo way waa runtiisa eeg marka jacayl dareento meelaha qaar baa ku xanuun أنا وحنا لا نشجع إنك واحد تذكر وش شيء تذكر طبعا إحنا شجع مكان ساعتين مكان دون سيناد برنامج كقبض واحد شرى سؤال قارب تسلسل يا جسان هذا شعلك مكسر وكذا ساعتين شف مرة كان سؤال شنو يديني وحكم ده سؤالها أنت كمرت الشدين أم بان صفر سمش عن لو ده كل سؤالها سين يديني هذا طبعا وطن شف سجى مرة سؤالها يجمع كتشوفان أنا تهيد والديار waxa barnaamijka ku jirta mar walba gabagaba inuu qofku su'aash alaali su'aash doonay weydiinay waa good wallahi way soo hadii aan jawaab u hayana waan iga jawaabaya hadii aan inuu hayna ma hayo may horta inoo dambaysa tiina horeysay tiina ka baxay anigu baa ma yaad ku bilaabmayso Muna jacaylku aaminsanay baad tiri ka dambeeya ko jacaylku markay uu macaan yahay balse markay uu qaraari aan ku horeysiyo bal macaanka horeysiyo horta wax qaraar dabisina yaani xilmi ku wanaagsan jacaylku oo jeceshay bas xilmi nacabta markay xaaladdu waxa ka gaadho xagana ku yar xidhan isweyntu si ka dhacay kan dareen kuma kaali uu yahay horta jacaylku mar buu wanaagsan wuxuu wanaagsan jacaylka marka lagu hayo ama ha dambayso ama ha oreyso garanaysaa laakiin
jacaylka horta sidiisaba laba dhinac ma noqdo inta badan 90% dhinac kaliya weeyaan garanaysaa ubax fahmo jirtay waa tiri laba cadax yaalana midin buu ku yahay laakiin jacaylku markuu qaraariyo waxa weeyaan markay muruga kula soo darso qofkii kula qaban waayo qofkii ka sii jeedo qofkii ixtiraamkii dhexdiinu ka dhamaado mar walba aad isqabqabsataan inta badan dadku waxay dhahdaan labada qof markasta islaayaanay iska masayraane ay jacaylku bataa waa run jacaylku wuu badan yahay marka labada qof iska marsaynayaan ay isqa qabsanayaan laakiin waxa meesha taala labadii isqabsi isku mid baa mise isku mid maaha labada isqabsi waxa weeyaan midna waa mid dareen oo qofkan waa jacasho wad ka masaysaa maxaa teleefankayga qaban weyday maxaad xakaa u martay qofkaa maxaad raacday qofkaasaad eegtay qofkanaad profiilka soo saartay qofkanaad soo dhigatay eeg jacayl waa kaas oo dee garanaysaa labada qof markay iska masayrayaan weeyaan qofka jacayl badan hadduu imaadana kalsooni meesha ma timaado sababta oo ah qof kastaaba qalbiguu ka gubanaya wuxuu soranaya qofkan aad iyo aad baad jeceshahay bilow kaa tagaa bilow qof kale kaa raacaa horta kalsoonidu waa nusqaamaysaa 50% ma garanaysaa laakiin se isqabqabsiga kale ku sheegay jacaylku markuu qaraaraado hebel maxaad ila soo hadli weyday iblaayo maxaad ila soo hadli weyday iyo halkan mareysay iyo maanta waqti iimaad helin iyo habeen baa la soo wacaya isqabqabsiga noocaas waa jacaylka qaraarkiisa ma garanaysaa jacaylku de siyaabo badan oo macaan iyo siyaabo badan oo qaraar iyo jawi qurux badan iyo jawi muruga labadaba uu leeyahay halkan kuma soo koobi karna waxaan jacaylkan ku soo koobi karna maaha laakiin se qaraarkiisa iyo macaankiisa inta aanu ka aaminsanay inta iga soo martay weeyaan su'aal baa jirta horta su'aal soo shacab waxa jirta imika saad sheegaysa horta labada qof ee jacayl muhiimadda midin buu ku weeyay mar walba waxaan maqlay anuu marka rag hadduu jacayl ku weyn yahay haddii kala horta dumarka way u naxan laakiin dawila arkay nin naag ka adkaatay amba niyo ha jeclaado amba yaanu jeclaan yaa wax naxitaan oo jiraaca ma jirto waxaana la sheegay dumarku inay qalbi jilasayn ay u naxan sababtooda haddaba raggu markay wax walba aad samaynaysaa oo qofkaas dabco ay gabadhu si walba samayso amba meel walba martaa maxay tahay waxay tahay oo xataarad horta waxa la yiri qofka horta marka aad jeceshahay wax walba uu sameeyo oo dul qaadanaysa laakiin se qofka haddaad jeclin ma dul qaadan kartid ma garanaysaa waxa la yiri marka lagu jecel yahay wad kibir badan tahay markaad wax jeceshahay wad samir badan tahay markaad isjeceshiin wad farxad badan tihiin garanaysaa la 10% bad arkaysaa dad isjecel isku faraxsan 40% baad arkaysaa qof samraya 40% waxaad arkaysaa qof kibirsanday garanaysaa 10 soo harayna waxa weeyaan 20 soo harayna waxa weeyaan laba dadka isku faraxsan ma garanaysaa marka aan waxaan aaminsanahay nin naag u samraya hadad aragto iyo nin ay naag ku tumanaysa hadad aragto dumarka dhan isku wada mid ma aha waayo raggu sidayna u sinay ayna dumarkuna u sinay sababtoo ah raggu waxay leeyihiin qayb jilicsan iyo qayb adag buu leeyahay qayb jacaylka u dabacsan oo dee hablaha farxad siisa way jiraan qayb adagoon u soo dabcin oo dee fooqiisa saaraan way jiraan garanaysaa laakiin aanu inta badan waxaan aaminsanahay ragga kibraaniyiinta adduunka waxa ugu nacabay nin dabacsan saaxib waayo dhade qofku markuu naag walbana waxay jeceshahay nin adag oo kaantoola nin dabacsan caadi maraha dhicin meesha ka dhigan caadiya afku isku kelmaysiin ama dhageysaa daba ninku horta umaba fiicnaba inuu dabacsanaan iyo waxaas gabadha dumarkii ka taraanto sababta oo ah hooyada adag ee gurigeeda uu garanaysaa adayga lagu dhaqaa ama aabaha adag gurigiisu wanaagsanaada ciyaalkiisuna ka dambeeyaan laakiin soo hooyada dabacsan ciyaalka iyo ubadka iyo ninka iyo dadku way wada dhex yaacaan cid ma kala dambayso waayo ninku hadduu haddaba jilicsan yahay waxaan aaminsanay inaanu ixtiraam yeelanin gabadhuna ayna ixtiraamin ayna kala dambeynaynin say doonto ay ku samaynaysaday garanaysaa laakiinse ninku hadduu aad adag waxaan aaminsanahay gabadhu la sheegstayna inay garanaysaa wax alaalo dee wixii uu ku amro gurigana ka soo bixin hadduu idhahdo ay samaynayso hadduu idhahdo waxaa ma samayn kartay ay samaynayso asxaab ha raacin habeenkii ha bixin taleefonkaaga mashquul kuma arki karo dhowr sanow tuko waxaan kala samee inay maqlaysaan aaminsanayde laakiin kana caska ay xagga tagtaa ama wajidaada halka tagnaado xagga tagtaa daba markaa waxaa laguma jiray saaxib markaa waxaan leeyahay ragow adkaanin ama saa adkaanine eeg dad dumarka marka la sheekaysanaysaan
dee magarasa jacaylkiina usoo bandhiga laakiin si jiljileec noocaas oo kale ayaan lagaa dareemin dumarkuna isku wada mid maaha ragoo dumarka inay isku wada mid yihiin ha aaminina dee qayb wanaagsan iyo qayb xun buu leeyihin qayb kibir badan iyo qayb dabacsan buu leeyihin ma fahanteen markaa waa idinka ninka sahayban ciil bahayaba shay horta jacaylka maad aaminsantay mise ma aaminsanay horta jacaylka waan aaminsanahay sababtaan u aaminsanahay jacaylku laba sababta anaa weydiin aaminsanta horta ma aaminsantay adigu waan aaminsanahay way jacaylka waad aaminsantay waxaad su-aashaan weydaadin ku jacaylka maya qaraadhkiisa iyo macaankiisa anaa sii wadan lahaa tahay dambe maa sii wadateen waan aaminsanaad ugatin su-aal khaleetan ku weydiin jacaylka maad aaminsantay haa waan aaminsan weeyaa jacayl suhayb maxaad dareentaa qofka jacaylka kula haya dee haddaad aaminsantay kole jacaylnimka uu ku haya amba uu kusoo maray xaaladaad dareentaa maxay tahay markaad joog jacayl ku jirto amba xaaladaad dareentaa markaad ku jirto jacayl isjiida amba aad qofka isku dhacdaan oo kale dee sidaad u aragtaaba horta anu jacaylka midaan aaminsanahay jacaylkaan aaminsanahay waxa weeye adaa henayaan filaya ay kuma haynaya kolley horta jacaylku lababa si bay isticmaalaan qof walna aad usaad ka dhigatay wey maanta inantaad xidhiidhka isla haysaan haddii aad adigu respect siiso ood ixtiraam siiso respect iyo ixtiraam bay ku haynaysaa laakiin anigu hal ray baan aaminsanahayo weligeynaan aaminsanana ilaa imkaan aaminsanahay kaasoo ah gabadhaad la socoto amba gabadhaad la sheekaysato inaad jacaylkaad u qabto lama wada tuso qayb ka mid a la tusaa sababtoo ah dumarku iska inantaa horta markay dareento sheekeer baan ka sheekeynaya waxaa dhacday adigu xidhiidh waa lasoo wada maray wakti bay ahayd wakti xidhiidh lasoo maraa jira adigu waxaan ahaa waktigii iigu horreeyey ee xidhiidh aan sameeyo jacaylkii iigu horreeyey waan tusay inantii wixii iga raacay aniga iyo ilaahay adoon kaaga sheekeeya sidaa laakiin maanta adigu intii ka dambeysay qof damaya waan dareensiiyey ee qofka biniaadanka horta hadduu jacayl dhabi ku hayo haddii marxaladdaa markaad dareemayso saasaan ahay ay badato cabashadaada waxaa imanaysaa inuu qofkii dareenkii ugu dareemi lahaa uu sii yaraado mar walba uu sii naaquso laakiin ilaa imikadaan hadlayo xidhiidh baan leeyahay wakti baan wada soconay muddo dheer baan wada soconay laakiin intay iyadu dareensiiso inka yar baan dareensiiyaa sababtoo ah dumarka waxaan aaminsanahay raggu haddii ay jacaylka usoo wada bandhigtaan dumarku ma qiimeeyaan hadalkaana munaa horoo dhamaysayo haddii maanta aduu de nin aad yaro dabacsan tahood maanta marxaladaada mar walba ka sheekayso qofka waxaa la yidhi baahi badan iyo baryo badanba baahi badan iyo bukaan badan ba laisku nacaa marka haddii mar walba ka turjunto noocaasaan saasaan wakti lagaa tegaya jirta laakiin mar walba haddii muhiimadda dhexdeena taalla aad ka hadasho ood mar walba muujiso qofkii waad rabtaa kamana tegi karta laakiin mar walba aad yaro muujiso ya damaya haddii daawan sarur ma sheegaya damaya horta rumaan kuu sheegaya wallahi bilaa iyadan ku dhahda anugu su-aalaha la weydiiyey ay weydiisay waxaa ka mid ah sidee bini aadanka maxaa kaa dhigi waayey waayo anugu dareen ma ley waan ku dareensiiyey way ku tiri maxaad ii dareensiin weyday de inaan jecelay og tahay way waliyo bila 1 minute ka maqnaan karo iminkaas ku dhacayna ninka garaacayana eeg jacayl intaas ku filanba wada sheegta qofka dareensiisay laakiin ka isbaadilka ma qurux badna mid kale jirta waxa jirta ragga iyo dumarka anu waxaan aaminsanahay labada qof ee si dhaba isku jecel ee maanta de horta jacaylku laba qof oo maanta aad isku jecel oon in yar aan kala maarmi karin waxa weeye labada isku haysashada badan haddii imika aad waraysato qofka oo inanta ku waranto inankuna ku waramo waxa imika la isku laayay wax aan aqliga gelin weyn waa wax basiida oo de maanta laba qof aan isku laayeen haddana isaga wax weyn bala tahay iyadana wax weyn bala tahay haddana marxaladda dagaalkii dhexdooda yaalla isla markaa wax halba imanaya amba isaga tanaasulay amba inanta tanaasuleysa 1 week inay isku dhacaan inay si toosa ay u wada socdaan ma dhici karto waxaan waxba ahayn maxaad saa u samaysay maxaad waxa u samaysay maxaad heblaaya sawir la gashay maxaad waxa u soo dhigtay eegada isla isaga laajigii maxaad la markaa mashquul ka dhigay hooyaan la hadlay
goormaad la hadlaysay adigu meeshii waxaa imanaya xaalad yar oon imika inaga aan dee marxaladda inagu haddaan kula wajahno maanta ag fadhino ma dareemino waayo hadduu qof kaga sheekay waa la yaabaysa waxaan wax weyn maahay maad iska dhamaysaan adaa la yaabay xitaa qofku mararka qaar waxay soconaysaa qofku banaanka xiga qofku ma dhimay waxa wuxuu inta ku haystaa laakiin isaga dareen baa ka keenaya marka jacaylka marxaladiisu iska fara badan yihiin intaasaan ka baxaya kolay su'aalo fara badan ma filaya barnaamijkii furitaankiisa waxay nagu martihaa waa Muna Faysal iyo Shaaib Caska horu socod doonaa barnaamijkan cid alaali cid baahantiin oo inoo qaban doona commentiga nagu reeba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh su'aashan ku sii weydiiyo كحرنا عاو ما يعاو ما والله بالله ان قشافتنا naga baqtay lagu gaarsiin su'aasha si degdeg ah jacaylka marxalad baa jirta la dareemo marka dareento xubneed ka dareenta dibinta hoosay qaraxdan aniga